Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin wada salaam asxaabta meel walba aad joogtaan maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkan kaga hadlo sida kalarka balaaga loo bedelo aad ugu bedeli karto kalar walbo aad adiga favorite-kaaga ah sida redka greenka iyo bluegaba ama whitekaba marka aan ku tusiyo sida aad ugu bedeli lahayd kalarka balaaga ugu horreyn markaad photoshopka aad soo furato marka hore waxaan soo gelinaynaa sawirka waxaan leenahay file kadib waxaad kasii xulinaysaa open markaan open aan xulano sidaad ujeedo sawirkan ayaan rabnaa in aan kalarka balaaga qofka u wato inaan kaga bedelno ugu horreyn sidaan ugu bedelno filekan marka ugu horreys waxaan samayn lahayn hue saturationka ayaan dooran lahayn kadibna sidaas ayaan ugu bedeli lahayn laakiin markaad hue saturationka aad doorato cilada dhicaysa ayaan ku tusin doonaa marka aan ku tusiyo cilada dhicaysa ayaa waxay tahay timaha in uu kalarkana sidaas uu ugu bedelayo marka aan ku tusiyo marka hore waxaad tagaysaa adjustment layer ayaad tagaysaa kadibna waxaad kasii xulinaysaa hue saturation markaad xulato kadib waxaad ka xulanaysaa handy toolkaas ayaad ka xulanaysaa kadib waxaad dooranaysaa kalarka aad bedelayso ayaad dooranaysaa marka aniga kalarka aan bedelay waa black kadibna click ayaan ku siinayaa markaan click aan ku siiyo kadib kalarada sidaad ujeedo markaan bedelayo oo kale saturationka xogaar ii badi kadibna sidaad ujeedo timaha qeybtan waxaa soo raacay kalarka aan ku bedelayo marka xalka marka muxuu yahay marka hue saturation kaliya miyaan u isticmaali karnaa maya waxaad u isticmaali kartaa hab kale ayaad u isticmaali kartaa marka hore typekan ayaan iska soo close gareynaynaa kadibna hue saturationka waan iska soo yara delete gareynaynaa kadib qeybta hoos markaa kusoo jiido kadibna waxaad leedahay del sidaan ugu bedelno kalarkan balaaga marka hore inta balaaga aan rabno inaan bedelno ayaan select saaranaynaa marka hore waxaad tegaysaa quick selection markaad doorato kadib waa kusoo drag gareynaysaa kadib zooming ayaad soo leedahay kadibna any tool waad isticmaali kartaa marka aniga hadda waxaan isticmaalayaa lasso tool ayaan isticmaalayaa xogaar waxyaabaha oo banaanka ka ah ayaan gudaha soo gelinayaa selectionka kaliya waxaa la doonayaa inuu ka ekaado inta aad adiga kalarka aad bedelayso in uu ka ekaado ayaa la doonayaa haddii wax external ah xogaar waxay yara keenaysaa in uu sawirka qaab dara noqdo kadib sidaad ujeedo marka hadda selectionka sidaan ayaan ku dhamaynay markaan selectionka sidaan u saarno waxaan keyboardkeen aan ka qabanaynaa control J ayaan leenahay marka hadda waxaan copy gareysanay waa funaanada ayaan copy gareysanay marka waxaan galayaa add style layer ayaan galayaa kadibna waxaan ka xulanayaa color overlay ayaan ka xulanayaa markaan ka xusto sidaad ujeedo marka blend moodkan waxaa ii saaran waa kalar black ah marka hadda waxaan rabaa in aan kalarka black aan ka guuro kalar kale aan u guuro xawayaal kalarka red markaan doorto kadibna blend moodkan meeshan aan ka furo kadibna aan ka xusto color sidaad ujeedo kalarka sidaan ayaa lagugu bedelayaa xogaayar opacity ayaad iska soo yareynaysaa marka opacity aad iska soo yareyso marka any color aad rabto ayaad meeshan ka dooran kartaa any color walba aad rabto ayaad meeshan ka dooranaysaa marka sidaad ujeedo marka kalarka whiteka kuma samaysmayo marka xalkeeda muxuu yahay marka hore iska soo close garey typekan ku furan kadibna midkani soo close garey asagana marka hore waa in iska hubisaa in uu ku dooran yahay copy layerkii lagu sameeyey oo funaanada laga sameeyey inuu ku dooran yahay marka hore iska fiiri kadib waxaad leedahay adjustment layer kadib waxaa kasii xulinaysaa exposure kadib exposure markaad ku dhufato kadib exposureka ayaad dhanka right-ka ayaad usii wadaysaa sidaad ujeedo sawirka waxaa ku furmay bright zaid ayaa ku furmay marka brightkan lama rabo in uu sawirka dhan uu saameeyo kaliya waxaa la doonayaa in funaanada uu saameeyo marka waxaad ku dhufanaysaa iconkan ayaad ku dhufanaysaa marka iconka aad ku dhufato layerkan ugu sareeya ayaa waxaa la dhexgelinayaa layerkan ka hooseeyo funaanada ayaa la dhexgelinayaa xogaar soo yarwad kadibna gamma correctionka ayaad dhanka right-ka ayaad usii jiidaysaa sidaad ujeedo si sahlan ayaa lagugu sameynayaa offsetkan haddaa rabto xogaar dhanka right-ka xogaar usii yara jiid kalarka balaaga sidaan sahlan ayaad ugu bedeli kartaa haddii aad rabtona kalarka whiteka sidaan ayaad u bedeli kartaa kadib marka waxaad sameynaysaa waad iska soo kansalaysaa marka sidaad ujeedo meeshan xogaar errors ayaa ka jiro marka si aad ugu bixiso marka hore exposureka hadda aad kusoo dartay ayaad layer maskigiisa ayaad ku dhufanaysaa
kadibna foregroundiga waa inuu kusoo horeeya waa black. Marka black sidaan hore usoo sheegno waa remove, kadibna waxaad dooranaysaa brush toolka. kadib right click ayaa leenahay brush toolka waa inuu ku doornaadaa soft roundiga. meelaha xoogaa yar errorska ka jira ayaad usoo tirtiraysaa. sidaan adiga inta uu ka saxmayo xoogaa yar sidan ayaad usoo tirtiraysaa. haddii aad rabto kalarka xoogaa yar meelo qaarkood aa qaladayna foregrounding waa inuu kusoo horeeya white-ka, waa in uu kalarkii hore uu kuugu soo celiyaa. waa intaasun ka faa'iidays wanaagsan. fadlan hadda channelkani ku cusub tahay subscribe saar, furo calaamada gambaleelka si ay kuugu soo dhacaan muuqaal walba aan soo gelino. haddaad videoga ka faa'iiday like garee, asxaabtaadana u sii share garee si ay ugu faa'iidaystaan. insha Allah badanaa channelkan waxaan uga hadli doonaa arrimaha multimedia iyo software-adan isleeyahay aad iyo aad ay noogu muhiimsan yihiin ayaan ku sharxi doonaa insha Allah. ugu dambeyntiina waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.